warhabeen yaan leedin dilina maalinta dhinta waxa way qof kasto SSC dil buu ku xukuman yahay anu waxaan dadkii markhaatiga ka ahaa Burco berbera waanu diinay garaadadii la socday garaad Salmaan iyo garaad Cabdiqani garaad Salmaan BBC buu ka hadlay Allahu naxariistay maalintiisa oo Burco jooga wuxuu yiri anagu goosasho lamaanu geline waxaanu la galay nabadgelyo Burco taagnaa Ahmed Karaash waxaan maqlaayay meediyada waxa laga ma qarinayo waana horaaba loo soo qoray inay u soo baxeen oo dhinaca tukaraq joogaan Ahmed oo golaha wasiirada ku wada jiray aqoon iyo shakhsiyan baynu isu leenahay ku dhaliili maayo in dhul baahanta abaatahay tamar meel walba ha ku dhigtee inaad firig leeynaysid amba waan ogahay inaad dadka noo dishaanaga rabna sabab waa dhiig aanu rabno inaanu berito saasalay markaad 800 ku soo galeyseen Burco iyadoo gaas qaybo badan joogaan waxa weeyaan dulmi baa la inagu hayaa dulmigana waqti dheer buu inagu socday ilaa iyo maalintii kacdoonkani uu bilaabmay ee dadku ka dhiidhiyeen dadka haldoorka ah ee midhmidhka madaxa loo soo duubanayo loo midhmidheysanayo mudo wuxuu yiri barigii dagaalkii 7 soconayay ba cali sabatar ba noo yimi oo markaas aan anaga beerihi falayna yiri yiri gaasiga furfurano aan furana ciidda hubka faraha naga saar waxaanu doonaynaa inuu dagaalka in la nageeyo wuxuu yiri dhaqaale igu adkaa idinka haya buuri hadayna beeraha iyo midhaha la soo baxayn mayna dagaalami karnaan buuri haddaad mid xilideen haya soo dirtaan 10 daawo la galo darajiye xil lagu raro uma korin darmaantee waxaan duulan u cuskaday madal iyo shir ila daa inaan dood ka oran karo inaan daahan garan karo dibnaha iga bari karo in la diidi kara yeel daribtayda malab kale in dugaag ku cuni karo hadallada idinka ayaa hore idinka haynaaye tii aad qaaxa ugu qaxdeen iyo mid ka sii daran waliba idinku waa cararteen سند عصب وعصب رجع عصب إيو صادال عصب صول سناق إيو عين كعضون كلاس عانود يقول ماذا جاليدا خاتمة أدون كدعالدي سكسعونية أيو إسو إماتين كان كبيدي هاي وحونا كدعي مقالة باميغهام دالك بريتن سيدان وذا أغنى هيبا لبي يطوان مالمود يهبي ندو دي أو إسوتا يا وحا مقالة لاس عانود كسعودا كعضون لغا سوى جيدو دول ميغا حد قدب كي يدلالك جوكتدا أو صاحان صدي بولشدا لبين تودي كعضون كان عصب أو أي وذان قاشان قاد كريلاس عانود أو إسكو دوبان كان بلوضي جريمة iyo dil loo geystay muwaadin bulshada qiimo ku dhaxlaha dilkaas joogtada oo saariyaday baarcadii magaalada meel oo raacdana la laa ayaa hadda waxa la soo gaaray xilligii la soo aftari lahaa gumaadkan qarsoodiga ee raad gadashada dulmigaasna sida lagu suulin karaa waxa weeye in loo midoobo oo sida maanta ay dadku u midoobeen runtii waxaan mar kale u mahad celinayaa xildhibaanada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee jooga federaalka oo runtii arintan dhacdadan foosha xun ka dhacday Laascaanood iyo xasuuqan ka geystay roolkoodii dhexna geeyay baarlamaanka federaalka kacdoon walba oo dunida ka dhaca dhalinyaro iyo dhiigga cusub ayaa bilaaba oo nidaamkii hore ee lagu soo jiray ee duuga iyo wax isdiida fikirka dhalinyarada ee hiigsanaya asaagood Laascaanood waxay muddo 15 sano ku jirtaa gabagabo afdhamaan dabcaga jugleyn iyo cabsi aan dhamad lahayn dilkii muwaadinka ugu dambeeyayna wuxuu dhaliyay holacan sii horaya ee labada toddobaad damira kacdoonkan oo la isku dayay in xabad nool lagu damiyana wuu uga sii daray kadib markii dhimasho iyo dhaawac hor loo geystay qof kasta oo deegaanka SSC ka soo jeeda ha ogaado ama habeen baa la dilayaa ama maalin idinka yaqaan ka dooranaysan dadka baaqyada diraya ee hanaga tageen oo jabhada hanaga baxdo war jabhadi ma baxdo jabhadu awal awood bay ku timi sifahay doonto ku timaado maantana awood bay ku bixi doontaa kuwa falkan guracani bahalnimada geysanaya miyaanay ogeyn dabka ilaa hadda damila iyo dumista dalal carbeed oo fara badan oo xoog laha uu sabab u noqday dhacdadii Tunisia ee wiilkii isgubay taas oo cirka gashay galaafatayna madaxdii carbeed oo xoog isbidaya oo qaarkood laga cabsi qabay inay haystaan hubka wax gumaada oo Mareykanka xitaa ka gaban jiray maanta xagee joogan soo ilka doofaar la sahansay laga ma dhigin markaas oo kale waxa ku soo baxaya gabaygii darwiishka weynaa ee ahaa rago kibirka waa lagu kufaa ka hal ogaado buuraleyda Abasiiniya ee qoomiyadaha Itoobiya qarniyada badan haystayna kacdoon dhalinyaro qayro la baxday oo u dhigma barbaarta ayaa dhagax isbedel ku keenay adduunkan aan joogno dadka afka lama qaban karo si kasta oo leeydka iyo khadka looga dansadana xaqa lama dabooli karo
haddaba jaaliyadda khaatuma ee magaalada birmingham ayaa martigelisay kulan degdeg ah oo ay kala soo qayb galeen qaar ka mid ah jaaliyadaha UK ee ka soo jeeda khaatuma state kulankan oo xamaasad gooniya xambaarsana ayaa lagaga hadlayay dhibaatada ka taagan laascaanood iyo sida loo xoojin lahaa xaqudirinimada loogana shaqayn lahaa iskaashiga midnimada iyo wadatashiga dadka dal iyo dibad oo qurba joogto ay lafdhabar u tahay waa cabdiaskar oo idinku duwaya daraawiishtii oo hurdada ka kacday dibna boodhka isaga jafaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كلن كان أن ما أنت السجون مد جالية برمنغهام جالية كوفنتري هي جالية بريستول أو هل كان aanu kaga hadlayno dhacdada foosha xun leh iyo xasuuqa ay geysanayaan bahalaha SNM ee doonaya inay ummadda degan sool sanaag iyo cayn ku dhibaateeyaan degaankooda ayay jaaliyaduhu doonayaan inay ka hadlaan codadkoodana ka soo gudbiyaan iyo waxa ay ka aaminsan yihiin runtii waxaanu aad iyo aad uga xunnahay wixii ka dhacay laascaanood waxaanuna mataqaana u tacsiyeynaynaa dadkii dhibtu gaadhay annaga oo inta kacdoonka wadana hiil iyo hooba la garab taagan waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka odayaasha ka tirsan jaaliyadan mataqaana hadlaya codkoodana matalaya oo afkooda ku hadlaya waxaan ugu soo horeysiinayaa jaaliyadda Birmingham oo magaaladeeda aan hadda joogno waxaan u yeedhayaa Cabdilaahi Diiriye insha Allah taala ku soo dhawow Cabdilaahi بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaynu ka hadlaynaa wax weeye dhibaatada ka dhacday magaalada laascaanood jabhadda SNM ay dadka ku xasuuqday shicibka ah ee aan hubaysnayn ee u mudaharaadayay ka mudaharaadayay dulmiga iyo dhibaatada ay ku hayaan ciidamadaasi oo aan ka haysan deegaanka dalka wax maaragtay aqoonsiya ama ogolaansho inay iyagu ay mas'uul ka yihiin deegaanka SSC sidaa darteed dadka shicibka ay halkaa lagu xasuuqay dadkii ka dhashay ama dhalay ama u dhashay dhulkaasi waa annaka weeye waxaan marka caawa halkaan isugu imaanay waxa weeye sidii aanu arrimahaas wax uga qaban lahayn hiil iyo hoo iyo waxalaala wixii aan wax kaga qaban karno oo aanu ku bedeli karno wadciga ka socda dalkaas oo aanu dhibaatadaas kaga hortagi lahayn dadka iyaga haysata waxaanu u diyaar garownay inaanu waxalaala wixii hiil iyo hoo ah oo aanu arrintaa ka geysan karno inaanu ka geysano ama tala ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama sidii kale oo aanu wax uga qaban karno ha noqoto midda keliya marka aan ku darsanayaa kale waxa weeye maanta alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaa dhacday midow gudihii ah hadday noqoto isnimadayadii hadday noqoto dhalinyaradii hadday noqoto haweenkii hadday noqoto cid kasta oo maanta u dhalatay deegaankaas waxa aynu arkaynaa inuu kacdoon dulmi diid ah uu ka dhashay dulmigaasna sida lagu suulin karaa waxa weeye in loo midoobo oo sida maanta ay dadku u midoobeen ismadii SSC maanta hadday arrintaa u midoobeen oo ay kelmad keliya kaga hadleen waxaan ka codsanayaa keliya waxa weeye inay ay dagaal u aclanaan oo nin walba isma reerka uu isimka inuu yiraahdo reer hebelow waa dagaal baan idin aclanaya ama dagaalama ama seexda kelmaddaas hadday ka soo baxdo maanta ismadeenna oo si generaal jamaca uga soo baxdo waxaan qabaa inaan layna soo hawaysanayn shicibkiina inuu kacayo midnimadeena inay halkaa ka dhalanayso waxa weeye haddaad dalka aydan u soo jeensan oo ismadu u soo jeensan oo culimadu u soo jeensan waxa weeye wax soconaya ma jiraan dhalinyarada la furfuraya iyo dadka odayaasha cuqaasha lagu sheegayo la furfuraya dadka la furfuraya kuwa ka hortaga marka ugu horeysa iyaga weeye sunta la idin soo diraya balaayadu waxaan kaga baxayaa jaaliyadaha dibadda meel aad joogtaanba waxaa la idinka rabaa maaha codsi ma aha calaacal wuu dhammaaday sidii rag horeba sheegeen codsi ma aha waxaynu ku khasbannahay meel aynu joognaba jaaliyad kasta oo dhulbaanta meelay joogto ama SSC oo dhanba meelay joogaanba dulmigaa sidaynu isaga qaadi lahayn inaynu u wada midoobno oo meel uga soo baxno sidaasaa inoo ballana maanta ina mid shalay lahaa xornimaan waxaan diidaya dulmi baan diidaya
وأسوق دلمي شلي ديدي كوجود دبغ وأتكيشان هذا وخلط وجوين أكد عيا دجان كنيوي سيدا درت waxaan rabaa nin shalay wuxuu diidayay maanta inuu adiga inaga ina ku qasbo wax suurta gal ama wax shaqeynaya maaha shaaliyadaha dibaddu dhaqaalaynu haysana iska daa wax kale yaani waxaynu sameyn karnaa buuraynu jabin karnaa wax allaale waxay awood aynu leenahay inuu sameyn karnaa lacag baynu haysanaa maal baynu wax yaani boqolkii nin oo SSO maanta meel isugu yimaada waxay bixin waxay masruuf karaan 300 askari bay sameyn karaan oo ciidan oo hubayn karaan maanta waxa weeye marka dhaqaalaha inuu hurro maskaxdeennuna hamidowdo magaceennuna hamidowdo guda iyo dibadda waa in si hal dariiqad la qaado hal meel laga wada hadlo hal meelna itijaahan noqdo magacan ku dagaalamayna oo mid noqdo intaasaan kaga baxayaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh runtii waxaan mar kale u mahad celinayaa xildhibaanada gobolada sool sanaag iyo cayn ee jooga federaalka oo runtii arintan dhacdadan foosha xun ka dhacday laascaanood iyo xasuuqan ka geystay roolkoodii dhexna geeyay baarlamaanka federaalka waxaan kaloo u mahad celinayaa midnimada iyo wadajirka ay muujiyeen dhammaanba isimada dhaqanka ee deegaanka waxaan boorinayaa mar kale in ay dhalinyarada iyo odayaasha iyo hablaha iyo ciroole iyo caruurba ku nool deegaanka meel kasto uu yahay ma aha laascaanood oo kaliya deegaanka sool sanaag iyo cayn oo idili inay ka dhiidhiyaan falalka foosha xun ee ka dhacaya meesha ayada waxaan u yeedhayaa Ismaaciil Axmed Cumar insha Allah ta'ala soo dhaw Ismaaciil bismillahir rahmanir rahiim awalan wa salaamantiin dhamaan gabdhahan ugu horeysiinaya waqtiga ragga la horeysiin jiray waxaan u maleynayaa qadwalad waa la dhaafay aad baan ma jeceli inaan ka hadlo maanta arrimahan meesha ka dhacay laakiin awalan waxaan u mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba gabdhaha qaaliga ah ee laascaanood iyo meelo kale oo deegaanada ah ka dagaalamaya lafdhabarka oo ah halganka lagu jiro iyaga iyo caruurtooda waayo raggii way iskaga tagay meelahaas ay midhaafayaan iyaga lafdhabar u ah taa waxaan iyagan mahad gaar u celinayaa dhalinyaradana mahad gaaraan iyagana u celinayaa wixii dhintay ka tacsiyadeyn maayo anigu wax badan baa la tacsiyadiyay kuwa maanta nool iyaga dhaama qof kasta oo deegaanka SSC ka soo jeeda ha ogaado ama habeen baa la dilayaa ama maalin idinka yaqaanka dooranaysaan hadda de maalin baaba la dilaado waxaynu maqlaynaa mid baa dhintay 5 baa dhintay 10 baa dhintay waxay ka fiican tahay in habeen lagu dilo war habeen yaan la idin dilina maalinta dhinta waxa weeye qof kasta oo SSC dil buu ku xukuman yahay jabhada SNM buu kaga xukuman yahay ogaada taa horta halkaasaan kaga baxaya dadka baaqyada diraya ee hanaga tageen oo jabhada hanaga baxdo war jabhadi ma baxdo jabhadu awal awood bay ku timi safahay doonto ku timaado maantana awood bay ku bixi doontaa awooda inaga iska leh ninka dhulka iska leh baa dhulka u haraya rasaastooda inoo ah oo logistiktooda inoo ah oo wada inaga iska leh oo dhulka adiga iska leh intaaba ugu waxaad ogaataa ninka 10 xabo haysto 5 hadaad nin ku disho 5 kala saare iyo ka seeroobin 10 kuba waxaynu u diyaar garoobaynaa dagaal dadku waa nin dhaqaalaha bixinaya iyo nin dagaalamaya iyo nin dhimanaya dad baan maqlayay lahaa raggu ha qaateen maryaha dumarka hadda kaba dalaceed ma bayaalaan idinka ugu xaaxidhanaysaan waxaan marka leeyahay xoogaa mar rabo inaan ku sii tiigaalo waxaan u mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba dadkii Soomaaliyeed meelo badan oo dalka kamida naga taageeray arrintan genocide ka dhacaya iyo dilka deegaanka ka dhacay naga taageeray baaqooda nagu biiriyay yididiilada cusub iyo halka guga ku curtay guba curtay 15 sanadood baan dadka la aqoon waxa dilaya waa la yaqaanay laakiin aan afka la soo marin karayn
waxaad ogtihiin wadaadadii salaada jimce maalintii dhowad inaan midna maanta ka joogin waxaad ogtihiin duqaytidii meesha in marba mid hudheel loogu yeedhayo wiilka yar waxaan farayaa war dhulkan adaale 60 jir waa la xajeclo oo wixii la siiyo kii soo socdaba wuxuu moodaya inuu wax u soo sido waxa weeye dhulka idinka iska leh dhulkan ha loo dhinto wax kale oo jira ma jiraan dagaalka hal la galo ninkii xogaayada inagu kala jirjiray oo magaranaysa magacyo badan oo dadku jabhadu way dhib badanta oo dadku marka la burburiyo ee la dhex galo oo system dhaqaale haysta dhex galo dhib badan baa la gaarsiiyaa waa ka soo kaban karnaa tii daraawishaad baad ka kabateen tan 10 jeer baynu ka soo kaban karnaa wax weyn maaha waxaan kaga baxayaa warnimo yahow rag yahow dhulbahante magaca doonto sheego ninka maamulka u shaqeynaya waxaan leeyahay war hoy waxaad yeelaysaa war halka adoo ka shaqeynaya dhaqaalaha ku bixin kartaa kuwa ku bixiya waaba jiraano hargeysa iyo meelo kala jiro oo lacag ku bixiyo contribution ka bixiya waa jiraan oo lacag badan bixiyo qaarkood wasiiro iyo saraakiil bay yihiin oo asana mu shaqeeya waa jiraan war hoy ragaasi liis bay leeyihiin oo ku qoran yihiin ku soo biira kuwiina kalow rag baanu liiskooda haynaa dhaqaalahooda bixiya ma jeclin inaanu sheegno arrintan inagula jira inaga mid ah ciidan ma haysta waa tol jira Allah idinka dhigo iyagana la socda dagaal baynu diyaar garoobaynaa dhammaanteen intaynu la egnahay dil baynu ku xukumannahay nin kastoo dhulbahanto waad xukuman tahay war habeen intaan lagu dilin maalin lagu dilo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته markale waxaan leeyahay dadkii ku geeriyooday kacdoonka iyo intii ka horeysay ee lagu dilay iyadoo oo mtaqaan hal doorka la midmideysanayo intaba waxaan leeyahay dadkaas iyaga ah waxa weeyaan man qatala duuna maalihi فهو شهيد رسولك صلى الله عليه وسلم باير حديثك ومن قاتل دون عرضه فهو شهيد وحويان قفكي ku dagaalamay inuu isagoo difaacaya naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa ka ayaa shahiida ka ayaa mujaahida waxaweyaan runtii waa in lagu dhinto weeyaan isagoo difaacaya naftaada maalkaaga iyo cirdigaagaba jaaliyada Birmingham oo Ismaaciil iyo Cabdilaahi hadlayeen aad u mahadsan yihiin insha Allah taala waxaan ku wareejinayaa jaaliyada Coventry oo aanu yeerayo insha Allah taala Yusuf waan salaamaya dhamaantiinba waxaan halkan u dirayaa anigu baaq laba qodob ka kooban midii jamhadda SNM bay ku saabsan tahay jamhadda SNM ma oranayo dhulka ka baxa kana taga oran maayee waxaan leeyahay nimanka maanta dooxyada ee dumarkii iyo caruurta laynaya sii laayaan idin leeyahay dadkana ama dad حويانا iska leenaysaan un bay noqon doonaan ama dad un bay yeelan doonaan laakiin de kulli in badan imika 15 sano ba leedin la hadlayo waxba ku qaadan weeyde idinku laay oo dadka si wacan u laay nimanka intaasaan oranaya guud ahaan dhulbaanta waxaan leeyahay ama Sooliya Sanaag iyo Caynba maanta waxa la ceelo uma qorna ciidano uma maqna war maanta maatadeedii iyo caruurteennii yaa la laynaya nimankaasi way cadaysteen ninkii islahaa nimankani way idin kala jecel yihiin wallaahi inaydan idin kala jeclayn ka u shaqeeya iyo ka wasiirka u ah iyo ka askariga ah warinka ilmaha yar ka xishoon waayey hooyada ka xishoon waayey ee dadka inta dadkoodii la laynayay 15 sano madaxa loo soo duubanayay waynu ognahay dadka SNM ballaysa in maaragtay nin oo ku dhici kara inuu yiraahdo dadka laynaya sheega alxamdulillah saaka haday awl hore sida ragii horeba sheegay habeen bay dili jireen oo madaxa soo duuban jireen dadkani gacan ka xaq daran baa dishay wala loogiye dadkii la leyn jiray wadka nasiib baantii kuwii madaxa loo soo duubtay saa wala leedin ogiye duur cad baa leedin dilayaa marka war dhammaan Soomaaliya oo dhan intii ka qayb qaadatay ama social media dad badan oo Ilaahay khayr siiyo Soomaaliyeed oo taageeray dadkan dhibaataysan dhibka lagu hayo yaan social media ka daawaday waanu idinku soo dhaweynayna laakiin intaas NF maaha dadkani waxa weeyaan awooyaashood calanka Soomaaliya u dhinteen maantana isagii un bay u dhimanayaan
marka in dadka waxaad og tahay in lagu sheego lagu celceliyo wax micnaa ma samaynayso annagu haday federaal tahay iyo haday maamul kale oo Soomaaliya ka jira tahayba kama hayno dadkani wixii ay ka geeyeen ee kaga beegnaa kama hayaan waxa weey haday Soomaalinimo jirto haday dawladda federaalka ah dadka ka dhaxaysa way aragtaa madaxweyne xasan sheekh uu ka hadlay baa laakiin is not enough ma aha waxaasi madaxweyne ummadda Soomaaliyeed ku metelaya ma ka geeyaan waxaas dadka Soomaaliyeed aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa dhamaantiinba dadka SSCna waxaan leeyahay jaaliyad haday tahay iyo haday gudo tahay iyo haday dibad tahay gacmaha isqabsada midooba dadku midnimo wax ku yahay wallahi inaan waxaan midnimo lagu helin aan kali iyo socod aan lagu helayn rag badan baa orday oo xeerada salkeedii soo taabtay oo halka wuxuu waxay socoto soolka meertaba saldhigeedu waa ceelka sibir kale halkan baa la isugu imanayaa guul iyo gobonnimo aan idin ogahay kii af ku taageeri kara iyo kii dhaqaale ku taageeri kara waa lagu baahan yahay muddo wuxuu yiri barigi dagaalkii 77 soconayay baa cali samatar baa noo yimi oo markaas aan anagoo beerihii falayna yiri yiri gaasiga furfuranow aanu furana ciid hubka faraha naga saar waxaanu doonay inuu dagaalka in la geeyo wuxuu yiri dhaqaale igu adkaa idinka haya buu hadayna beeraha iyo midhaha la soo baxayn mayna dagaalami karnaan buu waxa weeyaan meesha ugu weyn miisaanka ugu weyn jaaliyada leh waxa weeyaan nin walba ka qayb qaado kii familkiisa hoos la hadli kara iyo kii cid walba la hadli kara aynu isgarab taagna arintaas waan salaamaya dhamaantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هالكن سلا هراء مغليسين جاليده هراء نجهري أنو الله هذلنا دمان ضدك يجي هالكاتشوجي هذا هاين عقاشي وركي يسوع محليا اسمه ده يدي وركي يسوع صارين إن أنو لقبنا قاضنينا كنا جور عنها هي وحي ناس وجامين ضدك يجا جدها كتيرة يكو دمنا يا هالكالوجو لينا ينا aanu aad iyo aad uga xunahay waxa laynayana waxay ahayd markii hore in la yiraahdo dadkan lama oga waxa laynaya iyo wax laayay ma arago ma ogeyn laakiin waxaanu aad ugu faraxsanahay inuu dadka iyagu nala fahmay ayna u cadahay waxa laynaya cid ay yihiin iyadoo ay dhagax sitaan oo aanay hubsidan TV-ga laga wada daawanayo iyo meediyaha oo halka lagu laynayo yaani runtii waanu uga tacsiinayna intii dhimatayna waxaanu leenahay geeri xaraga leh baad dhimateen oran mayno anagu Muuse iyo inta la faca naga daaya ama dadkan ka daaya waxaanu leenahay haday kuugu badinayso sidaas ay kuugu badinaysaa kuwad oo halka ka sii wad anaguna taladeedu way noo midaysan tahay waananu ku faraxsanahay inaan ismadayadii iyo dadka iyaga shacabka ah ay jaantii isla heleen insha Allah ana si xaq darradu ma sii raagayso way soo ururaysaa haddana naruura muuqata insha Allah biidnillah waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan codsanaynaa garaadada deegaanka oo meelaha kala duwan jooga inay sida ugu raqsaba badan sida hadda la sheegayay ay gudaha u soo galaan oo dadka hogaamintooda iyo taladooda ay qabsadaan oo iyagu ay qaataan masiirka ay leeyihiin waayo hadaanay gudaha iyagu imaan meel dheer oo dadkan laga soo taageeraya ama cod lagaga soo tuuraya runtii ma kuma sii socon karaan marka iyagana aad iyo aad waxaan leeyahay inay gudaha soo galaan sida ugu dhaqso badan gudihii u fariistaan dadkii ula kulmaan ciidamada iyo dadka lagu shaqaysanayo ee midna jabhadahan la socda ee dadkooda laynayana waxaan leeyahay xilligaad wax fahmi lahaydeen waa la gaaray xilli hadeer aad sandareero sii qaadataan waxaan u maleeyaa inay soo dhamaatay soona ururtay intaan idinka leydin dilin oo aan dadku idinku soo jeensan idinka ka horeynaya kuwa aad maanta u adeegaysaan haday saa ku sii socotee intaanay halkaa sheekadu gaarin waxaan leeyahay ka waantooba oo ka noqdo oo u tanaasula dadkiina lana dagaalamo qoriga dhinaciina ka qaata culimada runtii deegaanka
ama deegaanada u dhalatay ee aad iyo aadka haddeer qaarkoodii intii masaajida ka hadashay ama hadashay maanta magaalooyinka laga saaray ee sida gaarka loo beegsanayo waxaanu leenahay insha allah bidnillah waajibkiina baad gudateen wixii aad dadkan ugu maqnaydeen ee aad culimo ugu ahaydeenna waad ka ficil qaadateen marka mid xidhan baanaan lahayn soo daaya mid maxaan ku idhaahday dhaawaca oo aad cusbitaaladii u diideen baanaan idin lahayn u ogolaada hala soo dabiibo sidii ay idinku badiso sameeyaanu leenahay halkaa kasii wada culimada iyo garaadada iyo waxgaradkana waxaanu leenahay jasaakum allahu khayran annaguna garabkiinaanu taagannahay wixii aynu kala dheefnana aynu kala helo wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan salaamayaa dhammaan jaaliyadda meesha isugu timid rag iyo dumarba dhalinyaro iyo waayeelba salaan ka bacdi waxaan isleeyahay shirkeenana wuxuu daaran yahay baaq iyo haddii bukuroye taageero loo fidinayo dadkeennii iyo kacdoonkeenii ka socda iminka gobolka sool ugu horreyn waxaan doonayaa inaan u duceeyo ma tacsiyadeynaya kolley waa shahiidiin weeye dadkii ku dhintay sool rag iyo dumarba lahaa dhalinyarada ahaa waxaan aaminsanahay ilaahayna uu ka dhigayaa inay shahiidiin yihiin dad xaq u dirirahoo xaqoodii u dagaalamayay inay yihiin intaa markaan soo dhaafo waxaan mahadnaq u celinayaa dadka Soomaaliyeed ee meel walba jooga ee noogu soo gurmaday xaqa isku kaaya garab taagay sheegay in dulmna lagu hayo oo gardarro iyo dulmna lagu hayo oo xaqa muujiyay waxaan sidoo kale iyagana mahadnaq u celinaynaa maxaan ku idhahdaa odayaasha daarood kuwa harti iyo kuwa Soomaali weynba waxaan isleeyahay laba kelmadood laba qolo oo baaq aan doonayay inaan u kala diro mid waxa weeye haddii bukuro horjoogaha SNM Muuse Biixi waxaa miidiyaha ku duuban adigoo leh reer sool lama caburin karo Ingiriis baa caburin kari waayey Talyaani baa caburin kari waayey haddii bukuro Ethiopian baa caburin kari waayey waa daraawiish taariikh bay ku leeyihiin Soomaaliya iyo adduunkaba afkaagaad ka qartay waxaan isleeyahay haddana ma caburin kartid maxaan ku radaa sida aad u garanaysay ee aad miidiyaha uga sheegaysid ayaadan noo caburin karin marka waxaan oran lahaa haddii uu ku rooyahay inta aadan haddii uu ku rooyahay inaan isku nafbeelin iskala bax ciidankaaga iska tag waxaan kaloo baaq u dirayaa nimanka u dhashay gobolada SSC oo shaqaalaha ka ah SNM-ta u shaqeeya waxaan ogahay oo aan liiskooda hayaa qof walibana garanayaa dadka ku dhintay maxaa la yiraahdaa laascaanood ee habeenkii la dilay ee madaxa loo soo duubto marka laga reebo culimadayada marka laga reebo aqoon-yahankayaga marka laga reebo dadka caadiga ah intooda badan waxay u shaqeynayaan Somaliland bay u shaqeynayaan waxaan maqlayaa ayaamahan iyaga oo reer Somaliland leh war dadkani Somaliland bay u shaqeynayaan dadka dilayna waa Khaatumo iyo Puntland waxaasoo kale waxaa la yidhaahdaa misleading baa la yidhaahdaa haddii aad la socotaan dowladaha hore u maray marka ay caalami taalidka doonayaan dowladahooda inay haddii ku rooyay wax ka bedelaan ama ay mucaarad ku noqdaan waxay u sameeyaan rag mucaarad ah oo dowladahaas caalami taalidka ka soo horjeesta oo la dagaalama oo haddii ku rooyay ka hor yimaada marka ay dadkaasi muuqdaan oo mucaarad ahaan loo aqoonsado oo adduunku oo dhami ay arkoon ayay maxaan ku idhahdaa dowladahan hore u maray dilaan dadkaas si ay shaabadda ugu dhajiyaan dowladdaas ay mucaaradka ku ahaayeen marka waxaan aaminsanahay inta Somaliland u shaqeynaysayba inay Somaliland dishay iyagoo doonaya inay Khaatumo iyo Puntland ku dhajiyaan
oo ay magaranaysaa ay ficil dadka lagu sii kala fogeynayo doonaya inay sameeyaan waan aaminsanahay waana sidaa iminka adduunku ay wax u dilaan weeye inta kale hadda u shaqaysana waxaan isleeyahay gacanta Somaliland aad u shaqaynaysaan baad ku baxaysaan waan is xoreyn karnaa waa isku filannahay runtii haddaanu midowno cidina ma haysan karto dhulkayaga iyo gobolkayaga laakiin tafraaruqa noo daran tafraaruqana dadka nagu haya Puntland waa ka mid weeye marka hiil waxaa noogu filan inayna ammaan geliso waxaan u yeedhayaa hablaha Aamina iyo Fardu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روان السلام دمانتين aad baan ugu faraxsanahay kasoo qaybgalkiina inta waxaan ku darsanayaa baaqaas oo ku wajahan guda iyo dibad baaqaygu waxa weeyaan marka ugu horeysa gudaha SSC iyo dagaalka gobolka Sool waxaan leeyahay istifaaca haddaad tihiin shacabka halkaa jooga istifaac baa laydinka baahan yahay midnimo laydinka baahan yahay waxaa laydinka baahan yahay waxaa laydinku soo qaaday dagaal gardarro ah in badanna waa laydinku hayay intaa dul qaadan karteenna waa dul qaadateen wixii intaa ka dambeeya ha dul qaadanin istifaaca geeri xalaana la dhinta intaa waxaan leeyahay shacabka gudaha intii inaga dhimatana Ilaahay u naxariisto marba naxariista waa loo baahan yahay qof dhintiyo qof noolba intaa waxa ay dheer jaaliyada dibadda waxaa looga baahan yahay inay taageeraan shacabka dhimanaya dhigbaxaya dhagax ku dagaalamaya ee sharafteena iyo magaceena u dhimanaya inaynu taageerno ayaa la inaga rabaa oo aynu wax walba oo ku garab istaagno oo wanaag ah waxa weeyaan dulmi baa la inagu hayaa dulmigana waqti dheer buu inagu socday intaa ka dambeysana uma dul qaadan karno intaan dul qaadan karno waynu dul qaadanay yani inta geelu xamilaynu xamili intaa ka badan ma sii xamili karno maanta un bay inoogu dhowdahay midnimo maanta inoogu dhowdahay guul baan inoo rajaynayaa inta dhimatana Ilaahay u naxariisto inta kalena waxaa leeyahay war cisi iyo sharaf ayaa lagu dhintaa cisi iyo sharaf baan ku dhimanaynaa insha Allah inteen noolaatana inay sharaf ku noolaataan rabnaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullah aad iyo aad bay u mahadsan yihiin jaaliyadihii halkan ka hadlay odayaashii matalayay haddii ahaan leed jaaliyadda Birmingham haddii ahaan leed jaaliyadii Coventry iyo jaaliyadii Bristolba runtii waxa weeye taqaanaa mowqifkoodii iyo damiirkoodii dareenkoodii ay soo gudbiyeen waxa weeye runtii waxayna hadlayeen xaqiiqada dhabta ah iyo waaqica ka jira maanta deegaanadii waxa kale oo halkaa ay taqaanaa inoo muuqata in dhibaatooyinku ay soo tarayaan ilaa iyo maalintii kacdoonkani uu bilaabmay ee dadku ka dhiidhiyeen dadka haldoorka ah ee midhmidhka madaxa loo soo duubanayo loo midhmidhaysanayo ay ka dhiidhiyeen waxaa socday xasuuq iyo genocide dil iyo wata dhibaato fara badan waxaynu ogeen in lagu nabadgeli waayay masaajidadii oo culimadii khudbadda ka akhrisay maalinta Jimce rasaas shaab shooters ay ku dileen oo ay ku toogteen maxaa waxaynu ogeyn hadeer wararka ugu dambeeyayna soo gaadhaya waxa ay sheegayaan in caawadan ay mataqaana ka dhacayso dhibaatooyinkii ay sii kordhiyeen iyagoo bilaabay inay boobaan bakhaaradii iyo dukaamadii dadka shacabka ay ku lahaayeen magaalada hantidii taalay iyo raashinkii yaalay oo ay boobayaan jabhadii SNM ciidamadii ka joogay meesha iyagoo oo hantidii dadka nabadgelin waayay naftoodii u nabadgelin waayay dhibaatadiina u nabadgelin waayay insha Allah taala waxaan leenahay dadku waxa weeyaan waxay ka dhiidhiyayaan waa xumaanta iyo dhibaatada lagu hayo ee xasuuqa iyo boobka hantiya naf iyo maalba loo geysanayo ay ka dhiidhiyayaan waxaan leeyahay beesha dhulbahantay ama gobolada SSC kabay horaa wuxuu ahaa dilkaagii la doon laguna farax sida dad gaalaad naftaada u dadaal wacdalaan duula ku rabin dhibaatadan maanta meesha ka dhacaysa mid in badan la soo qorsheeyay wuu ahaa mid dulqaadkeeda iyo nacasnimadeeda iyo eegashadeeda beesheenu iska lahayd ama deegaankeenu lahaa weeye maanta waad aragteen hore haddii la idiin qaybqaybiyey xabadda maanta ka dhacday laascaanood
maatada lagu xasuuqayaa reer hebel keliya kuma dhicin ama jilib gaara kuma dhicin waxaan u maleynayaa guri dhulbahante oo aan maanta geeridaasi oolin inaanay jirin haddii la idinkala jecel yahay oo la leeyahay beel hebel baa taageerta ama beel hebel baa naga soo horjeeda sidan uma dhacdeena si kale ahaan lahayd in dabargo-iina iyo dilkiina loo soo tafaxaytay oo la rabo in laydinka barakiciyo magaaladiina oo la rabo in cirdigiina iyo sharaftiina lagu xadgudbo caddaan weeye taasi idinna waad aqoonsateen fadhiga ha laga kacan leeyahay dadka guduhu hays abaabuleen ha adkaysteen gobonnimo waa loo dhintaa dhiigga geesigay ku baxdaa dhimashadu ina damqi mayso dhinaca SNMna waxaan leeyahay annagoo halgan iyo dagaal idinka horreynay haddana waxbaanu idinka barannay waxaan nagu filan gabayadii hadraawiye ahaa nin gar iigu dudayo uu dirmaha iigu kala bixin duqaydiyo waxgaradkii cidda ugu da'weynay dumbuq baanu dhiibo mayd bay dul yaalle miyaan geedka damalka adooyeysan karaya maanta wada hadal haddaad hebel soo dirtaan haddaad mid xil idiin haya soo dirtaan 10 daawo lala galo darajiya xil lagu raro uma korin darmaantee waxaan duulan u cuskaday madal iyo shir ila daa inaan dood ka oran karo inaan daahan garan karo dibnahayga bari karo in la diidi kara yeel daribtayda malab kale in dugaag ku cuni karo hadallada idinka ayaa hore idinka haynaaye tii aad qaaxa ugu qaxdeen iyo mid ka sii daran waliba idinku waa cararteen annagu aan joogaynaa waxaan leenahay maanta waad noo hiiliseen laakiin nagama aydan guulaysan waad noo hiiliseen oo dadka iyaga waa israaciseen wixii uurkiina ku jiray ayaad ficil u bedesheen diyaar baanu diinnahay haad burhaanakum meeshaynu isugu imanaynaa waa nugaal waraabaha nugaaleedna ninkii dhoof ku yimi baa geeridu dhibaysaa isaga ayaa kala yaqaana ka qariibka ah ee meesha ku dhintay iyo kii dhulka lahaa oo ehelkiisa ahaa dhurwaaga kala garan doona intaasaan idin ku dhaafaya Puntland waxaan leeyahay systemka Puntland ka mid baan ahaan jiray 2 goor baan wasiir ka soo noqday arrimaha kale halkaas oo kale iyadoo oo taagan baan goob joog u ahaa maanta madaxweyne ku xigeen waxa ka Ahmed cilmi Cismaan Ahmed Karaash waxaan maqlaayay meeriyada waxa laga ma qarinayo waana horaaba loo soo qoray inay u soo baxeen oo dhinaca tukaraq joogaan Ahmed oo golo wasiirada ku wada jiray aqoon iyo shakhsiyan baynu isu leenahay ku dhaliili maayo nin dhul baahanta baa tahay tamari meel walba ha ku dhigtee inaad firigleynaysid amba waan ogahay laakiin systemka Puntland ka jira igu sawirtii aynu isla ogeyn ee aan la soo dhaafi jirin buuro wadal inta teendooyin laga dhisto tuuta bilaash oo igu sawirana la qaato hadday hoosaasintii ka tahay abti fiiladaadii ku noq garow ku taalay inta ayaan iyagana oran lahaa waana idin salaamayaa waxa laynooga baahan yahayna waa guul iyo gobonnimo iyo inagoo dadka talada u deyna ugana dambayna taageeradeennana aynu laban laabno wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim anu war badan dhihi maayo waxaa dhameeyey gurtida halka fadhida iyo maxay tahay ina soo cadaan waxaan dhahayaa 2 kelmadood insha Allah billaah kariim SNM argixisada SNM reer Sool iyo Sanaag iyo ay way u hiilisay maxay ugu hiilisay waxay ugu hiilisay waxbay noo dishay inaad dadka noo dishaan naga rabna sabab waa dhiig aanu rabno inaanu berito saasalay markaad 800 ku soo galayseen burco iyadoo gaas qaybo badan joogaan waxaad tiraahdeen dadka ayaan u keeninaa dhibaatada si dadkaygu noo raaco dadka ayaanu dhibaatada u keeninaa say u arkaan dhibaatada ay noo raacaan waxaanu ku qeyrinay 15 sano in SNM ay soo gashay laasaan maanta haday wada ogaadeen oo aan loo naxayn kii idin shaqeynayay iyo ka kaleba waxaan maanta ku faraxsanahay kuwa dhintay inay yihiin wixii aan u baahnayn oo ummadayadina ay aragtay qof kasta Soomaaliina uu dareemay waxa meesha ka socdo because Soomaalidu waxay dhihi jirtay war idinka is haysta laakiin maanta maxay leeyihiin war laga khaldan yahay intaas guulno anaga
guusha kaliya aan sugaynaa waa intaa waana guulaysanayna insha Allah bilkariim waxaan ma dhamaanayaan caruurta iyo dumarku way dhimanayaan dad badan baa dhimanaya waxaynu ku wada xukumanahay sidii uu sheegay Ismaaciil kulligeen dhimasho ka u shaqeeya iyo mid aan u shaqeynba waa ku khasbanna nin la socotay kara ma jiro inta ama meelaha tay kara inta aysan joogto qof tay kara ma jira loo bultay kara ma jiro waxa waxaanay waynu diidanahay boqolkiiba 90 lamaynu samaysan anigu waxaan dadkii markhaatiga ka ahaa burco berbera waanu diidnay garaadadii la socday garaad Saleemaan iyo garaad Cabdiqani garaad Saleemaan BBC buu ka hadlay Allahu naxariistay maalintiisa oo burco jooga wuxuu yiri anagu goosasho lamaanu geline waxaanu la galay nabadgelyo burcu taagnaa garaad Cabdiqani gaarigiisii baa lagu dhacay marka goosasho cidna ma joogin أسنان بيهاين لما نروح برجع عليه نها برولي هاي بعد كي ماشوا جساق خصبي أسنان بيه ولا سيدي بينها لما ينقصن تاس وين ذوقاتن أسنان سومالنا وحلا مثلا أسنان تأرجع حسادة ده يعلم يسكلي أنه قبصن إنه يساق ما يصنو لكن وحنا هيصنع أسنان أو أرجع حسو ومد الصومالي الله صدري إنه قال الله صدري لكن هو كقول يسين نجعل بالكريم وحنا الشعب كذا يرضى joogta gobolkii ka qoriga sitay kan sidanba magaalada hore u sii gala magaalada gala waad ku dhimanaysaan horena waa u soconaa abaabkuna wuu socdaa anagu haddaan dibadda joognana waanu idin imaanaa insha Allah billaah kariim ninka ugu horeeya tagaana inagu waana tagayaa hadii Ilaahay yiraahdo waqtiga ugu horeeya waa tagayaa hadii Ilaahay yiraahdo abaabulkeeda markaan gallo ninka ugu horeeya gudaha gala noqonaya hadii Ilaahay. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.